kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qaybta 446aad ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. waad mahadsantahay Faayisa iyadoo la xusayo maalinta qaxootiga adduunka waxaan fursadan u adeegsanaynaa inaan ka hadalno dhibaatooyinka wajahaya qaxootiga ku sugan Soomaaliya, tallaabooyinka wax looga qabanayo, caqabadaha ay wajahayaan iyo xalalka suuragalka ah ee wax looga qabanayo si horumar loo gaaro. aad iyo aad cabdicasiis, maalinta qaxootiga adduunka waxaa sanad kasta la xusaa 20 bisha Juun, waana maalin caalami ah oo lagu bidaamiyo arrimaha saameeya qaxootiga, gaar ahaan dhinacyada xuquuqda, baahiyaha iyo riyooyinka kuwa lagu qasbay inay ka baxsadaan guryahooda, colaad, cadaadis iyo masiibooyin dartood. Halku dhiga sanadkan waa garab istaagga qaxootiga, taasoo adkeynaysa mas'uuliyadda la wadaago ee lagu taageerayo bulshooyinkan. balse Faayisa, miyaad og tahay in maalinta qaxootiga adduunka markii hore loo yaqaanay maalinta qaxootiga Afrika ka hor inta uusan golaha guud ee qaramada midoobay u aqoonsan maalin caalami ah oo gaar u ah qaxootiga bishii Diseembar ee sanadkii 2000? aad iyo aad waxay muujinaysaa xaqiiqda xanuunka badan ee ah in dhibaatada qaxootinimada ee gobolkeenna aysan ahayn mid cusub. dalkeennu wuxuu in muddo ah wajahayay mid ka mid ah xaaladaha barakaca ee adduunka ugu daran. sida ay tilmaamayso xogtii ugu dambeysay ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR, ku dhowaad 4.1 milyan ayaa ku barakacay gudaha dalka ama ka soo laabtay barakac lagu qasbay gudaha dalka, halka 5.2 milyan oo ruux oo Soomaali ah loo aqoonsan yahay qaxooti ama magangelyo doon daafaha adduunka oo dhan. intaasi waxaa dheer, Soomaaliya ma ahan oo keliya waddan soo saara qaxootiga, balse sidoo kale waa dal martigeliya oo ay ku nool yihiin 38,000 oo ruux oo isugu jira magangelyo doon iyo qaxooti, kuwaasoo badankooda ka yimid Yemen iyo Itoobiya. tani waxay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay mashaqada xilli aan isku dayayno inaan maareyno labada dhinac ee barakaca. waa sax Faa'iiso, si wax looga qabto arrimahan, hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka waxay ciyaartaa door muhiim ah, gaar ahaan diyaarinta siyaasadaha, agaasinka jawaab celinta bini'aadanimada iyo u qareemidda xuquuqda qaxootiga iyo barakacayaasha. hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka dadaalkan keligeed kuma ahan. UNHCR waxay muddo 30 sano ka badan bixinaysay ilaalin, hoy iyo taageero ay siinaysay bulshooyinka ku barakacay gudaha dalka. sidoo kale bahwadaag badan oo isugu jira maxalli iyo kuwo caalami ah ayaa la shaqeeya dowladda Soomaaliya iyo saamileeda kale si loo yareeyo saameynta mashaqada loona hindiso xalal shaqayn kara muddada dheer. waa sax, maadaama hadda aan ku noolnahay adduunyo ay ka jirto hubanti la'aan baahsan, maalinta qaxootiga adduunka waxay nagu boorinaysaa inaan garab istaagno qaxootiga oo aanan sharfin oo keliya sheekadooda, balse aan si firfircoon u taageerno xuquuqdooda iyo badqabkooda. haddaba si aan wax badan uga ogaano mowduucan, waxaa istuudiyaha nagula sugan Felicia Mandi Owusu, ku-xigeenka wakiilka howlgallada ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR, iyo Axmed Xuseen Cilmi, guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliyeed. Felicia, haddii aan adiga kugu bilaabo, waxaan jeclaan lahaa inaad dhowr eray noo faahfaahiso si aan u fahanno waa maxay farqiga u dhexeeya qaxooti, barakac iyo magangelyo doon. The difference between refugees and IDPs is that IDPs, or internally displaced persons, are usually persons who have been forced to flee their homes. farqiga u dhexeeya qaxootiga iyo barakacayaasha waa in barakacayaashu ay yihiin dad lagu qasbay inay ka cararaan guryahoodii sababo la xiriira colaado, rabshado, masiibooyin ama xitaa gariiro ka dhashay isbeddelka cimilada. Soomaaliya waxaa la filayaa sanadkan inay kordhaan dadka ka barakacaya colaadaha gudaha dalka iyo dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada. qaxootiga haddii aan eegno, iyagu waa dad ka gudbay xuduud caalami ah, waa dad ku qasbanaaday inay ka tagaan dalkoodii oo ay magangelyo ka raadsadaan meelo kale iyagoo ka baxsanaya colaad ama cadaadis. Soomaaliya waxaa ku nool qaxooti ka yimid Itoobiya, Yemen iyo Syria. magangelyo doon waa dad iyaguna sidoo kale ka gudbay xuduud caalami ah iyagoo raadinaya magangelyo ama ilaalin caalami ah, laakiin weli aan la go'aamin xaaladooda. Soomaaliya waxaa jira farqi u dhexeeya dadka haysta kaararka magangelyo doonka iyo kuwa haysta kaararka qaxootiga. marka waxaa jira farqi sharci oo u dhexeeya labadaasi qaybood marka la eego sharciga Soomaaliya. In Somalia, I know there's a clear distinction between holders of asylum seeker cards and those of refugee cards. So there's a very, very clear distinction for these two categories in Somalia.
maxay tahay muhiimadda ay leedahay maalinta qaxootiga adduunka adigoo maanka ku haya xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada barakacayaasha iyo qaxootiga? In Somalia, the World Refugee Day, as you may know, is celebrated every year on the 20th of June globally. In this particular context in Somalia, maalinta qaxootiga adduunka waxaa adduunka oo dhan laga xusaa 20-ka Juun sanad kasta. Soomaaliyana waxay u leedahay muhiimad gaar ah. sidaan horey u sheegay, Soomaaliya waxaa ku nool in ka badan 4 milyan oo ruux oo ku barakacay gudaha dalka iyo qaxooti ka badan 43,000 oo ruux. sidoo kale waxaa tan iyo sanadkii 2014 waxaa dalka ku soo laabtay in ka badan 100,000 oo ruux kuwaasoo qaxooti ku ahaa dalal kale. waxaan doonaynaa inaan sharafno sheekada qaxootiga isla markaasna aan maalintan ka dhigno mid muhiim ah. sanadkan waxaan haynaa war wanaagsan kaasoo ah in Soomaaliya ay ansixisay xeerka qaxootiga. waa mid taariikhi ah oo naga caawin doona inaan qaxootiga u helno ilaalin sharci ah iyo mid xuquuqeed. maalinta qaxootiga adduunka waxay abuureysaa fursad aan ku milicsano adkeysiga bulshooyinka barakacay isla markaasna aan ku taageerno go'aankooda ku aadan hirgelinta xalal waara ha ahaato wadamada ay magangelyada ka doonteen ama kuwa kale. Soomaaliya waxaan ka shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa xalal waara oo ay helaan bulshooyinka barakacay iyo qaxootiga. marka maalintan muhiim ayay u tahay UNHCR. UNHCR currently is trying to see how we can provide sustainable solutions for displaced communities, including refugees. So this day is really special for UNHCR. ugu dambayn, maxay samaynaysaa hay-adda UNHCR si ay u taageerto Soomaalida qaxootiga ah, kuwa magangelyo doonka ah iyo kuwa dalka ku soo laabanaya intaba? IDPs in Somalia are the bulk of people who have been displaced in this country. dalka Soomaaliya dadka ugu badan ee barakacay waa 2 qaybood. qaybi waa barakacayaal, qaybina waa qaxooti. waxaan si dhow ula shaqeynaa dawladda si aan ilaalin u siino. tan iyo sanadkii 2023 UNHCR waxay ka shaqeynaysay sidii xalal waara loogu heli lahaa barakacayaasha iyo qaxootigaba. waxyaabaha aan siino waxaa ka mid ah adeegyada asaasiga ah sida hoyga, daryeelka, caafimaadka iyo waxbarashada. waxaan sidoo kale u qareynaa sidii barakacayaasha iyo qaxootiga loogu dari lahaa nidaamyada qaranka si gacan looga geysto hagaajinta noloshooda. sidoo kale waxaan ku caawinaa qaxootiga waddanka ku soo laabanaya inay helaan soo laabasho amni oo mutadawacnimo ah. waxaan ku caawinaa safarka marka ay yimaadaan. waxaan ku caawinaa inay bulshada dib ula midoobaan isla markaasna helaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxaan si gaar ah ula shaqeynaa hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Soomaaliyeed kuwaasoo naga caawiya qaabilaadda dadka soo laabanaya isla markaasna gacan ka geysta inay helaan daryeel caafimaad, waxbarasho iyo taageero oo ay noloshooda ku maareeyaan. waxaan wada hadallo kula jirnaa maamulada caafimaadka heer qaran si aan u eegno sida qaxootigu uga faa'iideysan karaan nidaamyada caafimaadka ee dalka ka jira. Somaliland arrintaasi waxaan ka sameynay horumar, Puntlandna sidoo kale. haddana Muqdisho ayaan horumar ka sameynaynaa. waxaan la shaqeynaa maamulada kala duwan iyo bahwadaagta si aan u xaqiijino dadka magangelyo doonka ah inay helaan ilaalin. waxaan siinaa kaararka ogolaanshaha in la diiwaan geliyo isla markaasna la siiyo caawinta ay u baahan yihiin inta xaaladooda qaxootinimo go'aan laga gaarayo. hadda maadaama la meelmariyay xeerka qaxootiga, waxaan aaminsanahay inaan haysano qaab dhismeed sharci ah kaasoo si habsami ah u sii socon doona bilaha soo socda. shaqadeenna waxaan mudnaanta siinaa iskaashiga aan la leenahay maamulada maxalliga ah, bulshada iyo jilayaasha ka shaqeeya horumarka si aan u diyaarino nidaamyo waari kara. marka ay dhammaato shaqada UNHCR, waxaan rabnaa in shakhsiyaadkani ay si adag uga sii mid noqdaan bulshada oo ay si waarto oo madax bannaan u noolaadaan. Those people will be firmly rooted in the communities where they live, and they will be able to live on their own and develop their own livelihoods. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Felicia Mandi Owusu, ku-xigeenka wakiilka howlgallada ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR oo marti noogu ahayd barnaamijka Tubta Nabadda. waa hagaag dhegaystayaal, wiilina waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka Tubta Nabadda, balse iminka aan u gudubno wareysi aan la yeelanay Axmed Xuseen Cilmi, gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliyeed. wuxuu ugu horeyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan muhiimadda sharciga qaxootiga ee la meelmariyey sanadkii 2024 uu u leeyahay
siyaasadda qaran ee qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliya. sharciga qaxootiga iyo magaalooyinka Soomaaliya ay meel mariyeen baarlamaanka Soomaaliya meel mariyeen 2024 waa tallaabo taariikhi ah oo muhiim u ah xeerarka dalka. waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya yeelato sharci dhameystiran oo hagaya arrimaha qaxootiga iyo dadka magaalooyinka ah ayadoo la waafajinayo shuruucda gudaha iyo dalka iyo kuwa caalamiga ah sida 1951 Geneva Convention ama 1951 xeerka Geneva. sharcigan wuxuu si rasmi ah u aqoonsanayaa xuquuqda ilaalinta ay mudan yihiin qaxootiga iyo magaalooyinka wuxuuna dowladda federaalka iyo hay'adaha kale ku waajibinayaa fulinta arrimahaas. sidoo kale sharcigan wuxuu xoojinayaa doorka NCRI ama hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka hay'adaha qaran u hoggaansamayaan arrimaha qaxootiga. sharcigan wuxuu sidoo kale tilmaamayaa hanaanka loo maray iskaashiga la yeesho hay'adaha dowladda iyo hay'adaha samafalka iyo intaas. muxuu sharcigan uga dhigan yahay Soomaalida barakacday muxuuse ka bedelayaa noloshooda iyo rajadooda? walaal wuxuu u bedelayaa waa mid ka mid ah isbedelada ugu horeeyay uu sharcigan keenay ayaa dhacay 12 Maarso 2024 markii hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha ayadoo la kaashanayso hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR ayaa markii ugu horeysay bilaabeen bixinta kaararka aqoonsiga ee rasmiga ah ee qaxootiga iyo magaalooyinka. kaarkan wuxuu suurageliyay inay qaxootiga iyo dadka magaalooyinka ay helaan adeegyo dowladeed sida xorriyadda isku socodka gudaha, shaqo-galka, fursadaha ganacsi iyo adeegyada bulshada sida daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo bangiyada. sidoo kale sharciga wuxuu dhigayaa in la dhiso guddi qaran oo u xilsaaran aqoonsiga qaxootinimo si dadka u baahan magaalooyinka ay u helaan habraac cadaalad ah oo codsigooda ku gudbisan karaan. ugu dambeyn adigoo eegaya mustaqbalka maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha jira si ay Soomaaliya u xaqiijiso in barakacyaashu ay ka mid noqdaan bulshada? marka laga soo tago sharciga qaxootiga NCRI waxay hormuud u tahay dadaalada qaran ee lagu hirgelinayo sharciyada ilaalinta taakuleynta barakacyaasha gudaha. sharcigan oo ay ansixiyeen golaha shacabka haatan sugaya akhriskii golaha aqalka sare waa kii ugu horeeyay ee si gaar ah u difaacaya dadka gudaha dalka ku barakacay kuwaasoo ah inta ugu badan dadka ku barakacay Soomaaliya. waxaa sidoo kale jira siyaasado iyo habraacyo dalku leeyahay kuwaasoo ay NCRI hormuud ka ahayd diyaarintooda sida habraaca qaran ee fasaaridda dadka hoyga ama dhulka ay degan yihiin eviction guidelines, borotokoolka kumeel gaarka ah ee qaybinta dhulka qaxootiga soo guryo noqda iyo barakacyaasha, siyaasado qaran iyo qaxooti soo noqda barakacyaasha. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Axmed Xuseen Cilmi, gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliyeed oo marti inoogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda. iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan hees ka hadlaysa dhibaatada qaxootinimada oo ay ku luuqeynayso allaha u naxariistay Faadumo Qaasin Hilowle.
waa hagaag dhegeystayaal aan intaas uga gudubna heestaasi ka hadlaysay dhibaatada qaxootinimada waxaa ku luqeynaysay allah u naxariistee faadumo qaasin hilowle waxayna ugu dambeysay dhegeystayaal barnaamijkanii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan